qof kastoo inaga naga mid ah waxa uu leeyahay ahdaaf, yoolal, higsiyo, hansare ama haddii la isku soo wada geeyo ereyadaasoo dhan wax uu qofku ka fikira mar walba oo uu higsanayo inuu maalin u gaadho. oo qof kastoo inaga naga mid ah haddii la weydiiyo nolosha yani ma ka leedahay ahdaaf, dabcan haa buu ku odhanaya. haddaba ahdaafta marka hoos loogu sii dhaadhaco waxaan ugu tegaynaa doonitaanada iyo riyooyinka qofkaas uu leeyahay oo mar walba ku fikiro in ay laga dhexelayo ama yani ay ku jiraan. haddaba waxaa dhacda in badanaa dadku ay u fikiraan oo yidhahdaan yani ahdaaftaas ama yoolashaas iyo waxyaabaha la midka oo dhan ama riyooyinka qofku ku fikirayo oo dhan wuxuu iska gaadhayaa sida ay nolosha u socoto uun maalin ka mid ayuu gaadhaya. laakiin waxa xaqiiqa oo marnaba inaan laga maarmin ay tahay inay u baahan tahay diraaso, inay u baahan tahay dhabar adeeg, inay u baahan tahay shaqo, inay u baahan tahay in laga hawlgalo ay u baahan tahay. oo wadna diraasada iyo in la faaleeyo oo la falaqeeyo yani haysigeena ma yahay mid suurtagelaya oo macquula mise ma aha in yani qofku aad uga fikro ay marka ay tahay. sidaa daraaddeed insha allah maanta mawduuc runtii aad u muhiim ah waan falaqayn doonaa kaasoo ah mararka qaar suurtagal ma tahay in waxyaabaha aynu ku fikirno ama aynu hisanno ama aynu doonaynaba ay iskaba noqdaanba waxyaaba yani malaawaala ama wax aan suurtagelinba ay noqon karayaan. waxaanu isla wadaagi doonaa markaa ama qof walba yani uu ka dhex ogaan karayaa yani dhowr qodob oo isla wadaagi doono ahdaaftu leeyahay iyo qodobadu leeyahay ma yihiin qaar saxa, yani qaar jidkii loogu talagalay ma yahay. waa miisaan uu qofku ku saari karayo qodobadan yani ahdaafta uu leeyahay nolosha haddii xataa aanay markii hore uu lahayna yani qodobada markuu ogaado uu ku sixi karayo ahdaaftiisa uu qaar wanaagsan uu kaga dhigi karayo. soo dhawaada dhammaantiin daawasho wanaagsan. السلام عليكم سو dhawaada saaxiibayaal khayr iyo wanaag baan idin rajeynayaa waa barkooyinkan Cabdulla Mansuuri haddaad hore noogu jirto asxaabteed kamid ahay soo dhawo mar kale haddaad noogu cusubtayna ka mid noqo asxaabta barkooyinkan insha Allah saan hore idinku la soo wadaagay waxaanu maanta isla wadaagi doonaa mawduuc noqonaya mararka qaar suurtagal ma tahay in ahdaafta iyo riyooyinka iyo waxyaabaha aan ku fikirna ay noqdaan qaar waxba kama jiraan ah ama qaar aan suurtagal ahaynba inay noqdaan. soo kale sidee ayaan u ogaan karayaa ahdaafteedu inay yihiin kuwa sax ah oo wanaagsan oo sidii loogu talagalay ah iyo inaanay hayn oo qaar iska wahmi ah ay yihiin. dhowr qodob ma isla wadaagi doona oo runtii aad miisaanka ku saari karto ama aad eeri karayso hadafka aad leedahay nolosha ama waxyaabaha aad ku fikirayso noloshu waa qaab nooceeya ama waa qaar noocee ah. labada qodob ama qaabka uu yahay hadafkaagu iyo markaa noocu yahayba aad ka dhex ogaan karto isla markaana aad ku sixi karto qodobadan aad adeegsanaya. qodobka koowaad isla wadaagana waxa weeyaan yani hadafkaagu ma leeyahay wajhad cad, yani meel cad ma leeyahay, yani hadafkaagu ma cad yahay. haddaad tiraahdo waxaan doonayaa inaan noqdo yani sheekh de sheekh nooceeyaaba doonaysa inaad noqoto yani inkastoo sheekh aynu wada naqaana haddana yani ay majaal baad doonaysaa inaad ku takhasusto yani meeshee baad doonaysaa inaad aqoonyahan baan doonaya inaad noqdo aqoonyahanku waa shay ballaaran aqoonyahan aad noqotid min ay majaal ama yani takhasustee ama yani aqoontee baad doonaysaa inaad gaar ku sii noqoto aqoon u sii yeelato. sidaa daraaddeed waxay yidhahdaan tusaale haddii aanad garanayn xagga u socoto waddo walba waxay ku geyn meel aad doonayso يعني wado walba si ay ku wado meel laana marka horeba wajhad iyo meel aad ku socoto may jirin iyo wado aad ku socoto iyo yool aad leedahay laana marka dariiqa walba raacda meel uu ku keen aska doonaysay marka hore. saa daradeed hadaf walba waxa uu ka bilaabmaa aragti cad uu ka bilaabmaa taasoo markaa yani la qorsheeyay oo la qaabeeyay isla markaana loo socdaalay oo laga fikiray oo la weeleeyay oo lala jaan qaaday waaqaca markaa yani qofku ku sugan yahay taasoo ugu dambeynna markaa uu ka dhabeeyo oo markaa fulinteedii iyo hawsheedii uu galo. sidaa daraaddeed waxaa muhiima in aad ku dhiirato yani inaad ahdaaftaada aad qorshayso ood qaabayso oo aad qorshooyinka duwan u samayso isla markaana aad ka fikirto ma yahay mid suurtagal ah isla markaana aad eegto inuu jiha cad iyo yani meel cad uu ku aroorayo. qodobka labaad isla wadaagana waxa weeyaan marka ahdaafta noocaasa la joogo iyo waxyaabaha aynu ka fikirano uma baahna kaliya fadhi waxay u baahan yihiin dhibaatooyin badan in loo maro. sidaa daraaddeed u dulqaado oo aqbal yani dhibaatooyinka kaaga imanaya hadafka intaad yani ku dhex jirto. sidaa daraaddeed waxaa la yidhahdaa yani safarka aad u gelaysa inaad xaqiijiso riyooyinka aad leedahay waxaad kala kulmaysaa dhibaatooyin aad u fara badan baad kala kulmaysaa laakiin waxaa loo baahan yahay inaad geesinimo iyo adkaysi iyo go'aan adayg aad kaga gudubtood markaa aad ku socdaasho taasoo markaa ku dhaxalsiinaysa haddii aad intaa ku socdaasho inta hore iyo dhowrka sane hore iyo dhowrka waqtiga hore yani aad u dulqaadato in marka dambe aad si wacan aad u raaxaysato wixii aad kusoo dhabar adeegtay marka aad si fiican aad u gaadhid oo markaa isbedelkii aad doonaysay marka uu ku dhaco. marka waxay dhahdaan ummaddu waxay ku kala halaan ahdaafta waa laga simanaan karaya oo qof walba waa ku fikiri karaya laana waa riyo kaliya laakiin shaqada lagu kala baxa waxa meeya waa inta dhexda laana saddex baa loo qaybiyayo qofku waa fikirka uu ku fikiro hawsha la gelayo iyo resultiga marka dambe soo baxa
resultigana waa wax la gaaro oo xagga ugu dambaysa weeyaan go'aankan horena waa la wada wadaagayo qof kasta waa ka fikiraya laakiin inta dhexe ayaa lagu kala haraa oo qofna uu isaga haraa qofna riyo kaliya ka noqotaa qofna meel fiican ku gaaraa qofna yani uu kuba guuleystaayo oo aakhirka halkii ugu dambaysay uu ku gaaraa marka waa muhiim inaad aqbasho wax kasta oo markaa kaaga imanaya hadafka aad leedahay qodobka saddexaad aan soo qaadana waxa weeyaan ahdaafta aynu leenahay waxaa jiray dad inooga sii horreeyey oo khibrad u lahaa sidaa daraaddeed waa inaad mar walba kaashataa oo aad la kaashatay ood la fadhiisatay ood la yani sheekaysataa cid kaaga horreysay oo markaa talo iyo tusaale kugu darta yani keligaa marmarka qaar dariiquu kugu dheeraan karaya waxaana uu kugu noqon karaya mid aad u adag laakiin haddii aad adeegsato qof kaaga khibrad badnaa ama kaaga horreeyey waxaa laga yaabaa in safarkaa dheerba uu kuu noqdo mid aad u fudud isla markaana aad u cad inuu kuu noqdo oo qof kaloo isagoo bilaa murshid ah ama bilaa la taliye ah inaad kaga wacnaato ayaa suurtagalayo si fiican oo fudud aad ku gaadha halkaas saa daradeed waxaa muhiim ah qofkaad u taraysay inuu noqdo markaa qof khibrad leh qof markaa yani aad u darsay mawaadiicdan aad ka fikiraysa ama yoolasha aad leedahay qof aad yani ugu xeel dheer waa inuu yahay saa daradeed markaa qof waad u tegi kartaa kitaab fiican oo mawduuca ka hadlaya waad akhrisan kartaa waxaad kaloo markaa ka qaybgeli kartaa dowro muhiim ah oo mawduucaaga la khuseeya oo mawduucaaga markaa xidhiidha leh ayaad ka qaybgeli kartaa marka cidda ku haraysa qofna way noqon karaysaa buugna waa noqon karaya iyo aqoon aad raasatana waa noqon karaya iyo tababar aad ka qaybgashaba intaba waa noqon karaya laakiin waa inaad cidun kaashataa oo keliya aanad khibradaada ama yani khibrad la'aan dabcan waa tahayba marka hore waa tijaabinaysa laakiin shakhsiyadaada oo keliya inaanad ku sii deyne aad cid kale ama yani qof labaad ama cid labaad oo kale aad la kaashataa waa shay aad runtii u muhiima oo kuu suurtagelinaya inaad shaygaas si fiican aad meel uga gaadho qodobka afraad aan doonayna isla wadaagno waxa weeyaan markaad intaa laga imaado oo hadafkaaga kuu cad yahay isla markaana aad u dhabar adeegtay eed markaa aqbashay wax walbo kaaga imanaya hawshaas isla markaana ciddii khibradda u lahayd aad la kaashatay ama adiguba aad diraasaysay waxa markaa muhiim inaad wixii fuliso ood markaa fulin la timaado riyooyinkeenu keliya yani waxay u baahan in la jiheeyo oo lagu dhaqaaqa ayay u baahan marka intaa laga imaado saa daradeed waxaa markaa muhiima in markaa ay kaaga baahan tahay yani riyooyinka aynu leenahay ama ahdaafta aynu leenahay inay kaaga baahan yihiin yani juhdi badan dadaal badan ay kaaga baahan yihiin shaqo badan ay kaaga baahan yihiin يعني waxaan wada ogsoonahay dhammaanteen riyooyinku kuma dhaboobaan tamani yani in qofku uu ka fikiro oo kaliya oo markaa yiraahdo waxaas yani niyadda inay kugu jirto oo kaliya yani kuma dhaboobaan laakiin waxay u baahan yihiin markaa maxay yani shaqo joogto ah bay u baahan yihiin oo markaa yani aad looga shaqaysiyo taas oo markaa maalin ka sii dambaysa horumar fiican lagu sameeyo adoo ka dheeganaya ama yani eegaya caqabadaha ka hor imanaya sida uga gudbi lahayd oo markaa khibrad fiican aad ka kororsanayso si fiican aad meel fiican ugu sii gaadhisid marka waxa muhiim ah in aynu tanfiid la imano ama fulin la imano ahdaafta aynu leenahay yoolasha leenahay haddii aynu ka baqano aan iska joognana yani halkaas maynu joogaynayo wax allaali waxaanu fulinaa ma jirto maalin kasta qofkii ku imaadana waxaad uga sheekeen intaasoo riyooyinaa baan leeyahay intaasoo ahdaafaa baan leeyahay ama waxyaabahaasaan aragtiya adduunka ka haysta wixiina kuma dhaqaaqayso maalin walba halkii baad taagantahay ood ka fikiraysa qodobka shanaad isla wadaagana waxa weeyaan ee runtii aadka u muhiimka ee markaad fulinta aad gasho isagoona loo baahay inaad markaa uu garab labaad uu ku noqdo ama midigtaada uu ku noqdoba waa joogteynta waxa loo yaqaano joogteyntu ama in la joogteeyo riyooyinkan iyo waxyaabaha ka fikirayso ama yoolashaada inaad joogteyso shaqadooda waa guusha yani qofku inuu waxa ka gun gaaro oo meel fiican uu ka gaaro saa daradeed joogteyntu waa shay runtii aad u muhiima qofku inuu wixii joogteeyo oo shaqadii joogteeyo oo markaa uu aad uga howlgalo oo markaa aad si fiican aad hawsheeda u qabato saa daradeed haddii caqabad ay kusoo waajahaan oo dhibaatooyin fara badan ay kusoo waajahaan xataa waxa loo baahaya inaad markaa aad sii joogtayso oo markaa hawshii aad sii qabato laanna waxay dhahdaan inaad in yar cagaha dhulka ku sii hayso waxa ay kugu sii riixaysaa oo ay ku gaadhsiinaysaa inaad horumar fiicanaha sii gaadho yani in yar in cagaha lagu hayo waa sidii labadii qof intay isqaniineen oo markaa yani midna ku leeyahay ana ka yani damqashadaydu way ka awood badan tahay aniga ka awood badan oo markay isqaniineen ay xoog isku qabteen mid kamid uu markaa gacanta taaruuriga iga sii daa oo kii kale uu yiri haddaad in yar igu sii hayn lahayd ana gacanta sii taagi lahayd marka maxay ku kala badiyeen waxay ku kala badiyeen markaa joogteyntaas iyo markaa in cagaha dhulka lagu sii yarahayo ay ku kala badiyeen sidaa daraadeed ha sugin inay dadka kale ku sacbiyaan oo markaa ay ku yidhahdaan waad guulaysatay balse waxa aad noqotaa yani dhiirigelinta xagga ka timaado inaad adigu aad noqoto yani adigu isku noqo qofka dhiirigeliyaha ku ah yani mar walba guul gaadho ama mar walba meel fiican aad gaadho ama mar walba step fiican aad ka gudubto adu naftaada u mahadnaq يعني أبال مري قدمنا هورا وسيسو لكن عدة كلام ضد كلام هكو حرن مركا إن ماشى جالس يرى هكو حرن هذا ضد كلام هكو حدو
xasadu lfataa id lam yanaaluu sacyahu fannaas wacdaa'un khusuum bay kugu noqon oo marka qaadad waaba kaa soo horjeesan oo dee haddaad yani farxaddaadii ku xidhay murugadaaduna way ku xidhnaanaysaa yani marka labadaba waa inaad ka qaadatayo ad adigu hawshaada sa gaara wadataa qodobka lixaad isla wadaagana waxa weeyaan ahdaafta aynu leenahay iyo yoolasha ay leenahay waa inay noqdaan qaar waaqiciya يعني قodobkaas aad buu runtii u muhiim yahay waxa aynu ka fikirayno iyo waxyaabaha aynu leenahay yoolasha inaynu gaano ama horumarka aynu doonayno sameeyno iyo waxyaabaha aynu doonayno ka meel gaano yani waa inay noqdaan qaar la jaan qaadi karaya maxay adiga yani shakhsiyadaada la jaan aqoontaada la jaan qaadi karaya dhaqaalahaaga la jaan qaadi karaya fikirkaaga la jaan qaadi karaya yani horta wax adiga kugu munaasib ah oo awoodeedii leedahay waa inuu noqdaa waa kow waa midda labaadee waa inuu noqdaa mid xiriir la leh يعني bulshada iyo deegaanka aad ku nooshahay mid ay aqbali karayaan waa inuu noqdo mashruucaas yani waa in yani mid ka dhex shaqayn karaya oo dhexdooda ka dhex guuleysan karaya waa inuu noqdaa yani wax aan looga baahnayn ba haddaad la timaado dee adun baa ku hundoy oo markaa yani waxba aanay yani ka dheefi waayeysa isla markaana ugu dambeyn uu guuldaro ku dhamaanay laanna markii horeba muu ahaynba wax macquul ah oo yani suurtagelaya mu ahan saa daraaddeed waxay dhahdaan qofku marka uu doonayo inuu yani wax dejiyo ama waxyaabuhu qofku tamaniyaadkiisa ama waxyaabuhu doonayo wuxuu ka eegaa saddex mid kow qudro ma u leeyahay waxaas oo awood ma u leeyahay waa laba raqba ma jirtaa oo doonitaan ma jirtaa saddex fa oo markaa ah fursad yani fursad ma leeyahay ma u hayaa qofku haddaad markaa wixii fursad u hesho isla markaana doonitaana ay jirto awood aad ku qaadana ay jirto intaa haddii aad isla hesho waxaa si fiican baad uga dhabayn kartaa ama waxaas wuxuu waxaad qaadi karto oo ka shaqayn karto waa adiga markaa marka la eego mid kale muhiimayo waa inay jirtaa yani bulsho aqbali karaysa waxan ama cid haddii bulsho uu la xiriir la leeyahay waa inuu wax ka gadmi karaya oo markaa la jaan qaadi karaya oo deegaanka aad joogtay la jaan qaadi karaya waa inuu markaa noqdo haddii aanu ahayna waa inaad leedahay ama aad daraasaysaa sidii aad hawsha aad u qaban lahayd oo booska aad u geli lahayd waa inaad markaa qorshaheeda aad leedahay marka waa shay aad u muhiima runtii in aad looga fikiro wax walboo la samaynaya ma yihiin wax macquula oo markaa mawduucii lala eego kale smart goals oo kale ama erigii smart oo kale lala eego يعني إن قضبضي نوع عصر الله إله يعني واحد ما يهي واحد سوء تجلي واحد ما يهي واحد يعني الفلين كريه ما يهي وحيابا نوع عصر قضبضي قف إنه قاره وشيء أدرنتي أدر مهمة قضبة التطبيقات دنيا نكسر دبر وحويان يعني واحد إلى لسا واحد الله يقان عذر دارك آد بينو سامي يعني أنت صار شيء على جاب حتى مركزين في قضب كان العضبة أما أنا كهان نقطة ما ذيك بهان نقطتين إنه قصة عضو إن وحيابا فرب بدن ay jiraan oo runtii aynu qaban lahayn laakiin intaan cudurdaar u sameeyno meesha ka baxa oo saa inaga taga marka cudurdaarku aan yani macquulka ahayn ama cudurdaarka yani caajis lawada ku jirto ama yani qofku iska ilaado waxa bari baad qaban doontaa ama dib u dhigista oo kale waxa loo yaqaano dhammaan cudurdaarku nooc doona ha noqdee waana iska ilaalisa hatta haddii aad la kulanto dhibaatooyin yani waa inaad dhibaatooyinka aanad u samayn cudurdaar waa inaad yani sidii aad u waajihi lahayd mar walba aad ka hawlgashaa oo marka aad samaysaa سأدري عذرتك هذا إسك إلى رسيد وحول بمركا الدوريسو وضقبان كريسة مهمة وحوي أنا ذو حقبته لكن مهمة ما هنا يعني وحي أنت يعني عقبته طبعا وإيمان يسمر والبرد باتوين وإيمان يعني أنت تهاوش كل شرطه لكن وين تكرر بتاع أو دراسة أساسية أدرر بالله تاسع رنتي شيء أدو مهمة وحيابها لو كتري يعني قفكين عذرتان نفتي سأصميه إيه أنا أصميه هذا وحن هدي ما أنت تقول ليستي يعني برينا وتوزي قول ليستي نطاي سيس عورته يعني هل كان كويس تارين هدي أتقول درستنا بريكا معينة waad ku guuleysan kartaa hadana yani sii wad oo markaa ka gudub marka labadaba hadaad guuleysataan waa inaad sii socotaa hadaad guuldareysataan iyada lafteeda waa inaad sii socon karaysaa marka waa shay aad u muhiim ah in cudurdaarka aynu nafahayna aynu aad uga ilaalino runtii waxaan aaminsanahay in qodobadana ay yihiin qaar aad ugu muhiim ah inaynu miisaan ku saarno ahdaafteena iyo yoolasha iyo afkaarta aynu leenahay ma yihiin qaar dhab ah oo sax ma yihiin mise ma aha ama sidee aynu uga dhigi karnaa qaar wanaagsan oo markaas suurtagal ah sidee aynu uga dhigi karnaa waxaan rajaynaya dhammaantiin bayna ka wada faa'iidaysteen ay noqon doonaan qaar aynu runtii ku dabaqano ama la eegno ahdaafta nolosha aynu leenahay inta ku kulmana kulanka kan xiga waxaan kaga tagayaa nabadgelyo salaamullah